السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii fan karinta meeshaan waxa ku heesanaa oo sameeysan doona caawo baas saldaato way ka fududahay baasooyinka kaleeto familada hada kaliya arday tahay hada iskaabul tahay kulli waxa way hoor fududeys ma fahanteen waxa la dhahaa hada iga soo tuur aadi u fududahay easy u tahay waxyaabaha isticmaali doono ama ingredients-iga ee ka kooban tahay waxa kamid ah oo meeshaan ku heestaa weelkan waxa igu jira shiishid nooca isticmaalayo waxa waa بريمو oo kamid ah noocyada ugu fiican sidoo kale waxa heystaa xilwa tuuna oo laba nooc ka sameeysan dadka saacateenaayo waxa uu recommend gareyn lahaa midkan sunflower-ka ka sameeysan saliid sunflower-ka kana waa midka normalka oo regular-ka la isticmaalo labadooda midka ay heli kartid ay isticmaal kartaa ama midkii dooqaaga markaas sidoo kale basal inta igu jarjaran waxa kale oo inta ku heystaa baastada xilwa baastada laba nooc mid aragtid aad jeceshaa ka dhigin kartaa ama mid spaghetti-ga oo dhudhubka ama mid balbalaaran sidoo kale waxa isticmaaleynaa sunflower oil oo xilwa inta waa ingredients-iga maanta uu ka kooban yahay cusbada iyo waxyaabaha iyo maraqdeeg wax yar kor kaga soo dari doona dib aad ka arki doontiin insha Allah isla bilaabano saaxiibayaal hadda waxa soo saaranay biyihii way noo soo kululaadeen sida caadiga ah baastada mar walba cusbe u baahan tahay cusbadii ku soo darsaday haddana waxa sameynayaa baastadii aan ku darsaneynaa baastada saidin sheegay waxa isticmaalaya spaghetti xilwa oo kamid ah baastooyinka ugu macaan baastooyinka baastada waa walaaqeena sida caadigeena baastada waxa waaye waxay qaadataa normally 6 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo dadka isku biseel ma jecel dadka qaar jecel baasta aad furfur dadka qaarna waxay jecel yihiin baastada inay xoogaa bislaato normally ani waxa ay dadka kariyo 7 daqiiqo marka waa sugeena intay ka bislaanayso intay noo sii bislaanaysana waqtiga marabina iska sii dilo waxa sii dalacaya ama sii diyaarinaya suugadii aan ku saldaateen lahaa waxa ku soo bilaabaya saliida marka koowaad aan sameysanayo suuga yar oo aan ku saldaateen doono baastadeeda dabkii saaran waxa ku soo shubaya saliidi basashi basashi way soo gaduudatay saa arkaysaan hadda waxa ku soo darsanaya yaani shiishidi يعني marka soo daray kadib waxa ku soo darsanaya hal xabo oo maraq digaag waxa isticmaaleynaa hal xabo oo maraq digaag xilwa caawa malaaygi tuuni xilwa saliidi xilwa maraq digaag xilwa baastada xilwa waa xilweysanahay caawa ma fahanteen wax yar marka waxa shiileynaa shiishida ilaa xoogaa yar dhadhankeeda iska bedelayso waqti badan u baahan maadaama yaayadii caadiga ceeriinka waqtiga badneed u baahneen aysan ahayn oo ay tahay yaan shiishid laakiin waxa rabnaa wax yar inuu karka uu gaaro si uu dhadhan fiican ay u yeelato waxa ku darsanaynaa tooni kabsar marka ku soo daro waxa ku soo darsanayaa malaaygi tuunaha ahaayo diyaarsanaa qiyaasta adeeg ugu xiran tahay aan 2 gasac isticmaalina hol fududeys waa alaabtan maadaama malaaygan diyaarsan yahay yani shiishidan waqti badan aysan u baahneen kaliya waxa waaye cabaar yar inaa shiishid asiyadii basasha maraq digaageeda ku darsatid kabsari toon caraf kugu sameynaysa ku darsatid kaaliska arag sidaas ay ku diyaarsan tahabo هذا كلي وحا وباهناهنا إنا سلداتينو أو باستدي أيدا أسكو سلداتينو هدا جعشة هاي قويان يرى أوصا ميسان كرتا بيير أكو درسان كرتا سي سوغا دا إي باستد صفي عن إسوكا لحقالان صاحبي الميشان حاكو يستا باستدي أو أسوكريي حاسمينايا إنا ku saldaatay waa suugada saaxiibayaal hadda u jeedaan baastada way ii soo bislaatay hore u soo kariyay suugadii iyo waa isku saldaateynay baastadii xal raasidaas inay isku dhex galaan
marka hore si baastada kaaga jabin marka hore aa saldaataynaysid intaada saldaataynin marka hore baastada iyo san kaa jilcin hadaa rabtid 6 daqiiqo way kugu filan tahay xitaa 5 daqiiqo hadaa karisid daqiiqadaha u dhiman malaayga ayada isla bislaanayaan soo lacala ayadoo xoog u furfur hadaa ka dejisid xataa ha ka walwalin sababtoo ah meesha dabkaan ay waqti ku sii qaadanaya inkastoo aan hadda waqti badan aan rabin inaan bisleeyo sababtoo ah marka hore furfur waxa ka soo dhigay dhexdhexaad waa kaas aad ujeedin malaayigii carafta ka soo baxaysa maasha Allah lagama sheekeyn karo toontii iyo kabsartii wixii dhan way isdhex galeen suugadii dhadhankeeda liin dhanaantii diyaarino tahay hadda kaliya waxaan oo dhiman inaan weel ku soo guurano oo soo diyaarino aa aragtiin final luugeeda ama sida ugu dambeynteeda ku soo baxday kaasa saaxiibayaal baastadii waa soo karinay sidaasay ku soo baxday kaaliska arag ma fahanteen waa furfur carafteeda lagama hadli karo aad ay u macaan tahay saa arkayseen waxaa ka soo sameeyay productska arkayseen ama alaabihii asoo isticmaalo kulli waa u jeedeen malaaygi toona xilwa baastada xilwa maraq digaag xilwa dhammaantoodna natiijada ka soo baxday waxay noqotay cuntadan dhadhanka macaan aa idin dhadhamiyo maadaama aad samaysan doontaan ka hadal ma laha baastada way diyaarsan tahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen qaabka fudud u samaysanay alaabtan waxaa waaye easy yani waqti badan ma kaa qaadanayso biyaha dabka intay kusii saarayiin baastada aad karinaysid suugadana waa sii diyaarsanaya kadibna hal mar aa isku saldaateene waxaan rajeynaya inaad ka hesheen